كويس دكتور. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. waa muuqaal argagax leh dhanka kalena ah muuqaal farxad leh. dhalinyaradan Soomaaliyeed oo ay koox magafayaal ku haysteen goob qarsoon ayaa ciidamada militariga wadanka Liibiya halkaasi ugu galeen waxayna ka soo badbaadiyeen dhalinyaradii Soomaaliyeed. muuqaal la yaab leh ayaa laga soo duubay goobta sidii ay ciidamada u galeen iyo sidoo kale muuqaalada dhalinyarada Soomaaliyeed ee faraxsan kuwaas oo xorriyadoodii dib u helay. muuqaalkan ayaana wajiyada dhalinyaradan ka soo muuqanayaan. haddaba daawadayaal fadlan muuqaalka leegareeya si uu faafo una gaaro waalidiintii carruurtan Soomaaliyeed ayna xogtooda u helaan. sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adigoo janaalka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya. muuqaalkan oo ahaa mid argagax leh kaas oo ay ka muuqdeen dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo muddo lagu dhibaateynayo goob qarsanayd ayaa lagu baahiyay baraha bulshada. haddaba ciidamada wadanka Liibiya ayaa gudaha u galay xuruntan waxayna halkaasi ka soo badbaadiyeen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ku dhibaateysnayd. muuqaalkan ayaana dhammaad ilaa iyo bilow muujinaya sida ay goobtani dhalinyaradu ugu dhibaateysnaayeen ugu dambeynna ay ciidanku kaga soo badbaadiyeen. bal haddaba aynu isla daawano muuqaalka. كويس شنو؟ قاعد هدوش اليوم اولا مدور قاعد مي مي سكر نفط دينار شوي كده شوي كده قام زلوطة بس قام زلوطة قام زلوطة قام زلوطة قام زلوطة بس قام تحت قام تحت ادخلوا برا يجيكم. خلي تعالوا برا. بالواحد طابور طابور واحد بس عادي كلكم قليل بالراحه بس بالراحه كلكم قليل بالراحه خلاص يا اخي يا شيخ بالراحه بس قاعد ايوه بالراحه بس كلكم قليل بالراحه. شوف الدبس ناقص دبس منه والله. الله اكبر هي دبس مني جو والله. دبس من نظر
اي خلاص اطلع هيا برا ادخلوا برا ويجيكم هلا تعالوا برا بالواحد طابور من بدري وراهم كويس حط الشجر حط الشجر من بدري وراهم كويس حط الشجر حط الشجر haddaba daawadayaal liibiya ayaa inta badan ah goobta ugu badan way dhibaatada kala kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna had iyo jeer dhalinyaradani la kulmaan tacaddi ah in lagu soo xirto goob kadibna la weydiisto lacag madax furasho ah magafayaal isugu jira Liibiyaan iyo Soomaali oo arxan daran ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed madaxooda lacag ka sameeya waxa ayna ku afduubtaan goob iyagoona marka ay lacagta ka qaataan u bedela goob kale haddana isla lacagtii iyo mid ka badan ka sii qaata ugu dambayna rafaad iyo silac u dila waalidiinta Soomaaliyeed ayaana dhib kala kulma arrintan haddaba aad ayaan ugu faraxsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay xorriyadoodii helaan waxana Allah subhanahu wa ta'ala uga bariyaa in wadankoodii ay dib ugu soo laabtaan iyaga oo nabad qaba haddaba daawadayaal muuqaalka leegaray si uu faafo una gaaro qaraabada carruurta Soomaaliyeed